Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada channelka Amit Hope. Maanta waxaan ka hadli doonaa si guud ahaan waa maxay applicationkan Sweetcoin. Waxaan ognahay application Sweetcoin in baryahani Soomaalida ay aad ugu badatay raadintiisa iyo inay ogaadaan xogta ku saabsan applicationkan Sweetcoin. Muuqaalkani waxaad ku daawan doontaa applicationkani oo si fiican looga hadlay oo faahfaahsan. Muuqaalkani kadib waxaad awood u yeelan doontaa inaad ogaatid xog kastoo ku saabsan applicationkan Sweetcoin. Marka waxaan rajaynayaa inaad diyaar tahay. Muuqaalkan gudihiisa waxaan kaga hadli doonaa 4 qodob ama 4 su'aal oo muhiim ah. 4 su'aalna waxay qusayaan applicationkan. Su'aasha koowaad waxay tahay waa maxay applicationkan Sweetcoin. Su'aasha labaad waxay noqon doontaa application Sweetcoin sidee ayaa loo isticmaalayaa ama sidee ayaa loola soo degayaa iyo sidee ayaa loo isticmaalayaa. Su'aasha saddexaadna waxay noqon doontaa waa maxay meelaha uu higsanayo applicationka Sweetcoin ama update-yada ugu dambeeyay ee applicationkan laga filayo muxuu noqon doonaa. Su'aasha ugu dambeysay oo markaas su'aasha afraad ama qodobka afraad ayaa wuxuu noqon doonaa applicationkan Sweetcoin ma yahay application run ah ama waxyaalaha ay sheegayaan ee applicationkan ku saabsan ma yahay application ka turjumaya qodobadii ay sheegeen qodobada soo saarta applicationkan. Marka sidaan hore kugu sheegay muuqaalkan wuxuu noqon doonaa muuqaal aad kaga bogotid xog walba ku saabsan iyo xaqiiqadeeda ee applicationkan Sweetcoin. Marka intaana muuqaalka u gudagelin in muuqaalka aad like saartid marka hore, sidoo kale channelka inaad subscribe saartid si aan u gaarno 1 milyan waxyaala noo dhiman 1 milyan rabnaa inaan gaarno. Marka channelka subscribe saar please. Marka aan gudagalno muuqaalka. Su'aasha koowaad maxay noqonaysaa markaasi waa maxay applicationkan Sweetcoin. Haddii aad soo booqato website-kooda applicationkan Sweetcoin page ugu horeeyo waxaa arkaysaa applicationkan iyo xogtiisa. Haddaad fiiriso applicationkani wuxuu leeyahay applicationkan waa application marka hore haddaan concept guud aan ka bixino waa application Sweetcoin waa application kaasoo dadka lacag ku siiyo si ay u socdaan. Okay, saa u jeed sawirka waxaad arkaysaa talaabada macnaha qofka qaadayo. Okay, talaabada qofka qaadayo ayaa arkaysaa macnaha meesha. Marka waxaa ka fahmaysaa inuu ku leeyahay applicationkan waa application oo lacag kugu siinayo inaad socotid. Macnaha step walba aad qaado step 1 step 2 step 3 ama gurigaaga ka soo baxday waxaad aaday maanta suuqa ama magaalada baawar ma raacin ama bas ma raacin ama bajaaj ma raacin waa lugeysay. Marka lugeyntaas aad lugeynaysid ayaa wuxuu ku leeyahay waxaan kugu siin doonaa lacag. Okay, haddaa baawar saaran tahay applicationkan aad tijaabiso dhaqdhaqaaqa ma arkaysid, macnaha wax kala duwan ma arkaysid. haddaa baawar saaran tahay keliya wuxuu xisaabinayaa stepeska ama talaabooyinka aad qaadaysid. Marka haddaa page firis wuxuu ku leeyahay it pays to walk, macnaha waxay lacag kugu siinayaan applicationkan inaad socotid. Okay, inaad socotid ayaan lacag kugu siinaynaa. Haddaan hoos u sii socono waxay ku leeyihiin waa maxay visionkeena ama visionkooda waa maxay. Our vision waxay leeyihiin Sweetcoin horta waxay leeyihiin waa free application of free ah which rewards your daily steps, kaasoo kugu abaalmarinaya talaabooyinka maalmaha aad qaadid. Macnaha maalintii talaabada aad qaadid ama socodkii maalintii aad samaysid ayuu applicationkani lacag kugu siinaya. Okay, which rewards your daily steps with a new generation currency. Marka lacagta ay sameynayaan ama lacagta ay ku siinayaanna ma ahan lacagta dollarka ahayd, waa lacag ayaga khaas u ah markaasi oo lagu magacaabo Sweet. Lacagtooda waxaa lagu magacaabaya Sweet. Okay, waxay ku leeyihiin you can spend on cool products. Lacagtani macnaha waxaad ku iibsan kartaa ama ku qarash gareyn kartaa productyo cajiib ah. Sidoo kale lacagtan waxaad sameyn kartaa donate to a charity, macnaha waa sadaqaysan kartaa. Okay, ama convert into Sweet. lacagtan ama waxaad ka dhigan kartaa lacag oo Sweet ah. Lacag Sweet waan ka hadli doonaa waxay tahay lacagtan Sweet ayaad ka dhigi doontaa ayuu ku leeyahay. Marka
waayo marka sababtu maxay tahay markaasi arrintan ay u sameynayaan waxay ku leeyihiin because when you look after your health waa suuqgeynta ka hadlaya ma fahamta when you look after your health marka caafimaadka aad ka fikirta adi you will benefit society faa'iido ayaad macnaha ugu sugan tahay xagga bulshada okay waxaa noqon doontaa you are more productive waxaa noqon doontaa qof wax soo saarkiisa uu heer sare uu yahay sidoo kale waxaad caawin doontaa you will help safe waxaad caawin doontaa in la badbaadiyo ama in meel la dhigo lacag gaarayso billions oo ku baxa lacagtaasi xagga health care-ka ama caafimaadka wadankeena marka laga hadlayo health care-siga aad loo madanayo laakiin wadamada ay ka hadlayaan waxay ku leeyihiin waa caafimaadku waxaa ku baxa lacag gaaraysa billions ku baxa markaasi waxay ku leeyihiin your movement has a value okay dhaqdhaqaaqaaga ama socodkaaga wuxuu leeyahay value ama qiimo ayuu leeyahay sidaa darteed marka waxay ku leeyihiin you deserve a share in it markaas valuegaasi uu leeyahay socodkaaga ama dhaqdhaqaaqaaga qiimahaasi qayb inaad ka qaadatid macnaha waa la hubaa macnaha qasab weeyaan qayb aad ku lahaatid okay waa suuqgeyntii waxaan visionkooda ay kuu sheegayaan sidoo kale waxay ku leeyihiin applicationkani 100 milyan register users ayuu leeyahay macnaha dadka applicationkan isticmaalo waxay gaarayaan 100 milyan ayay gaarayaan ayuu leeyahay okay marka Play Store haddaa fiirsi xitaa applicationkani dadka isticmaala haddaa Play Store fiirsid wuxuu gaarayaa 50 milyan marka waad fahmi kartaa application ay ku xiran tahay 50 milyan ma aan application markaasi fudud xogtiisa macnaha waxa laga dareemi karaa application fudud maaha marka hoos haddaan usii baxno website-kani waxay ku leeyihiin what others say about us dadka kale maxay ka dheheen macnaha website-keena maxaysiintay wadaan tusaale ahaan haddaad fiirsi qoraalkan waxaa lagu leeyahay beat WhatsApp as a most popular in App Store applicationka Sweetcoin wuxuu noqday applicationka ugu caansan marka laga hadlayo App Store-ka oo marka laga hadlayo oo WhatsApp xitaa uu ka hormaray ay leeyihiin applicationkan sababtoo ah dadka ay aad u danay applicationka inay arkaan ama ay ogaadaan xaqiiqadiisa ku saabsan sidoo kale waxaad kala soo degi kartaa App Store-ka dadka mobilada iPhone-ka isticmaala ama waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store-ka okay marka wadamada la isticmaali karo waa ujeedaa waa Ecuador Egypt okay Salvador Estonia France Georgia Germany macnaha adduunka oo dhan ayaa laga isticmaali karaa sidoo kale waxay ku leeyihiin a few simple steps walk earn talaabo yar qaadid ayaad lacag aad ku tacban kartaa ama aad ku samayn kartaa marka lacagta sidee ayaad u qarash garan doontaa lacagta applicationkani aad ka shaqeyso ama coinska applicationkan aad ka shaqeyso sidee ayaad u qarash garan doontaa waxay ku leeyihiin choose from thousands of fabulous branded goods and services in our marketplace from high-tech shoes to iPhones and graphite yoga glasses, Apple watches and more. Macnaha lacagta coinska applicationkan aad ka hesho macnaha markaad socotid waxaad ku heli kartaa coinskan ama ku iibsan kartaa isla applicationkan dhexdiisa Sweetcoin waxaa kamid ah shoes kobo ama iPhone mobile iPhone ah ama yoga classes waa fasalo oo lagu barto exercise-ka jirka oo yogada ama waxaad ku bedelan kartaa Apple watcheska saacadooyinka Apple watcheska marka coinska aad hesho ama applicationkan uu ku siin doono markaad socotid ayaa intaan ku iibsan kartaa hadda hoos u sii baxid waxay ku leeyihiin applicationkani wuxuu sidoo kale u leeyahay waxaad donate wax kalmaana in lacagtii ama coinska aad sameysay in aad sadoqeyn kartid okay dhanka waxaa gelin kartaa coinska aad ku soo doqeynaysaa environmentalka ama humanitarianka arrimaha bini'aadanimada iyo arrimaha xayawaanada ku saabsan okay ayaad ku soo doqeyn kartaa haddaadan rabin coinska marka inaad isticmaasho adiga sidoo kale hoos aan usii socono waxay ku leeyihiin markaas exchange lacagta ayaa sarifan kartaa exchange waxa waaye inaad wax sarifatid waxay ku leeyihiin you can now convert Sweetcoins into sweet
marka haddaa sweet waa soo aragn soo maaha sweet coinka waxay ku leeyihiin dhibcahan ee sweet coinka aad heshay waxaad ka dhigan kartaa lacagtan sweet lagu magacaabo. marka lacagtan sweetka waa weli lama soo saarin laakiin waxay rabaan bishan soo socota September inay soo saaraan lacagtan sweetka. qodobkani waxaan kaga hadli doonaa qaybta dambe waa maxay future-ka ama mustaqbalka sweet coin. marka haddaa hoos aad usii baxdid waxay ku leeyihiin a new global economy of wealth through health is coming. marka waxay leeyihiin qorshe soo socdo, qorshahaasna marka maalmaha dhow ayay ku dhawaaqi doonaan inay soo saaraan qorshahaasi ee applicationkan ku saabsan. marka laga hadlayo data privacy-ga oo adig kuu qaasa, tusaale ahaan applicationkani intaad isticmaalaysid xog buu ururin doonaa. xogtaas uu ururinayo waxay ku leeyihiin 100% data privacy. lacagta macna boqolkiiba boqol datadaada applicationkan wuxuu ku leeyahay boqolkiiba boqol anaga datadan waa xogta waa ku ilaalin doonaa. sidoo kale waxay ku leeyihiin we do not sell your data. applicationkan inta isticmaalaysid dhaqdhaqaaq walba ee ku saabsan mobilkaaga wax walba ha noqdo way ogyihiin. kaliis ka maahan application wal mobilka kugu jiro weeyaan, kan kaliis maaha. marka waxay ku leeyihiin xogtaas anaga aan helnay, tusaale ahaan lambarada kuu save garaysan oo dhan camal ana xogtaasi qof saddexaad lama wadaagi doono ayay ku leeyihiin. the safety of your data is our top priority. marka xogtaada inaan asturno aan ku hayno waxay tahay prioritygeena ugu horeeya markaasi. marka application waxaa jira xogtaada intuu aruuriyo oo asidantiisa macna ku qabsanaa, tusaale ahaan whatsappka ama facebooka xogta adiga kugu saabsan intuu aruuriyo ayuu wuxuu rabaa xayeysiimo adigu anfacayo. markuu ileen uu ku yaqaanaa maogtahay xogtaada dhan uu hayaa si kuugu soo bandhiga. marka dadkan waxay ku leeyihiin xogta anaga aan aruurnay waxay kuu noqon doontaa privacy, waxaad kuu qaasa anaga ma iimin doono. waxay ku leeyihiin marka how do sweet coins marka get their values. sweet coin marka value ama qiimihiisa sidee ayay ku helaan markaasi. waxay ku leeyihiin the value of sweet coin is derived from our wide reaching partnership from brands that want to connect with health conscious audience. macna ayaga applicationka markaa aragtid gudihiisa aad gashid waxaad arki doontaa xayeysiimo oo tirabeel ah. xayeysiimahaas marka badanaan waxay ku saabsan yihiin dhanka health care-ka, maadaama applicationka sweetcoin uu ku jiro domainka caafimaadka. marka waxay raadayaan dad oo arrimaha caafimaadka rabo inay horumariyaan. marka xayeysiimahaas ayaga marka xayeysiinaya ayaa marka lacag ay ku helayaan ayaga. marka lacagtaas ay helaan ay waxay u isticmaali doonaan marka in xayeysiimahaas ay ku bedeshaan. marka adna waxaad ka mid tahay dadka xayeysiimahaas arki doona applicationka markuu isticmaalo. haddaa hoos usii baxda waxay ku leeyihiin applicationkan sweetcoin waxaa leenahay 600 partners, 600 wax gaarayo oo dad oo applicationkan laga shaqeeyo. okay, marka laga hadlayo brandska caafimaadkan imaanaya, domainka caafimaadka hoos imaanaya. marka applicationkan waxaad kasoo degsan kartaa download sweetcoin app to get started. marka applicationkan waxaad kasoo degsan kartaa saan sheegnay app store-ka iyo play store-ka. okay, marka qaybta koowaad ee su-aasha waa maxay sweetcoin meesha ay ku dhamaatay. marka su-aasha labaad waxay tahay applicationka sweetcoin sidee ayaa lala soo degayaa iyo application sweetcoin sidee ayaa loo isticmaalayaa. markaan galno su-aasha labaad, markaad imaadid applicationkan play store-ka ama google store-ka aad ku qortid sweetcoin waxaa kusoo baxay applicationkan shaashadiis. loogada waa fahmi kartaa, application waa loogadan wax badana kusoo baxay laakiin ninkan ayaa ugu saxsan, loogadan ayaa ugu saxsan. okay, marka hadaad fiirisid applicationkan sweetcoin waxaad degsatay dad gaarayo 50 milyan, dad gaarayo, dad yar maaha, dad aad u tiro badan weeyaan. marka review ama ficilin ka samaysayna waxay gaarayaan 1.3 milyan oo qofood ah. marka applicationkan aad iyo aad ayaa loo xiiseeyaa. marka hadaad rabtid inaad soo degsatid kaliya waxaa ku dhufanaysaa qaybtan installka ayaad kalik siinaysaa. okay, intaa markaa kalik siina applicationkani haddaan aadno qaybta hoose, haddaan aadno macna dadka waxaan rabnaa ra'yigiisa ama ra'yigooda dadka inaan fiirino.
5 star ma gaarin applicationkan weli wuxuu marayaa review ahaan 4.5 ayuu gaaraya celcelis ahaan weli ma gaarin maxalaas 5 star application ma noqon mar ninkan Benjamin la dhahayo applicationkan wuxuu ka yiri markaa wuxuu leeyahay this is easy enough to use and it is great concept applicationkan in la isticmaalo waa application aad u fudud markaas in la isticmaalo khaasatan marka when it has its crypto launch marka applicationkan cryptocurrency wax ay la wadaaga marka qodobkan ma rabo in had ka hadlo laakiin su-aasha u dambeysay aan sheegnay aan kaga hadli doono mustaqbalka sweetcoin waa maxay sidoo kale caqabad ayuu sheegayaa laakiin muhiimadda waxaa waye applicationkani inuu yahay application marka dadka ay isticmaalayaan ninkan sidoo kale wuxuu ka caawinayaa storeka applicationkani in aysan jirin maxaa loo yaqaanaa si optional tiro badan marka wuxuu ku leeyahay optionka applicationkan aad ayuu u yaryahay few weeyaane marka war badan intaan kugu daalay marka applicationkani soo degso adoo ku dhufanayo maxalaas qaybta installka ah marka saa usoo degsato waxaad ku dhufataa install okay marka waa xirsug bendin ayuu ku leeyahay macnaa wuu degi doonaa qaabka u degayna ama speedka wuxuu ku xiran yahay internetka haysata marka awood internetka ayuu ku xiran yahay marka okay waa ujeedaa inuu degayo marka isku soo alaabanayna ilaa uu applicationkan ka degayo marka marka saa ujeedid ba wuxuu dhameeyey marka degitaankii marka open hadaa ku dhufatid waxaad arkaysaa applicationka inuu loading ku sameynayo marka okay waxaa sugbal marka wuxuu ku leeyahay sign up ku sameey applicationkani macnaa xogtaada geli okay haddaan tusaalaan sign up with Google aan dhaho marka sign up ayuu ugu sameynayo Google sign up ayaan dhahay markaad gashid oo xogtaada gelis emailkaaga iyo magacaaga waxaad sameyn kartaa Google Fit ina enable lahdid Google Fit kan waa muhiim macnaa si loo xisaabiyo talaabooyinkaaga weeyaan okay tusaale enable haddaan dhaho Google Fit wuxuu sameyn doonaa marka settingkaygu ayuu xogtii ku jirtay ayuu ururin doonaa kadibna wuxuu ku leeyahay accountigan maxalaas applicationka sweetcoin privacyga iyo policygiisa ma ku waafaqsanta marka waxaa leedahay allowde waa ku waafaqsanahay marka sweetcoin sidaa ayaa loo sameynaya marka waxaana aada u fudud weeyaan fahamtay kali ka xiga xogta marka buuxdeed kali ayuu ka xiga marka inaa waqti kulmay maro marka su-aasha saddexaad ee ahayd waa maxay mustaqbalka sweetcoin waa maxay mustaqbalkiisa marka sida aad horey u ogeedba ama aad u maqashay applicationkan sweetcoin wuxuu ka gudbay inuu yahay application kaliya maxaa loo yaqaanaa si adoo socdo in coins ku siinayo wuxuuna u gudbay application xagga cryptocurrency-ga lacagtan electronic moneyga ee walletka tirada badan la isticmaalo sida bitcoinka ethereumka ayuu applicationkani suuqaas ayuu galay macnaa applicationkani wuxuu noqday application raba in horumarka uu gaaray dadkan uu tacbaday in uu macnaa si kale ugu faa'iideysto sidaa darteed waxay sameeyeen lacag loo yaqaan waatana sweet wallet lacag la yihahda ayay sameeyeen marka lacagtan sweetka ah dadka applicationkan isticmaala waxay u suuragelisay in suuqan cryptocurrency-ga ay la falgalaan xilliga hore waxay ahayd kaliya in lacagtani marka aad samayso kaliya aad sugtid in aad awood u yeelato in aad lacagtaas aad kala baxdo ama coinskani aad ku iibsato applicationkan dhexdiisa productska yaalo hadday ahaan lahaayeen kabo koorsooyin oo caafimaadka ku saabsan ama mobeelo ama hadiyadooyin kale oo tiro badan marka waxaad fursad u helaysaa cryptocurrency-ga adoo sweetcoin haysto ama coinska sweetcoin aa haysatid in aad u bedelan karto ama aad ku sarifan karto waladkan xagga cryptocurrency-ga
suuqa cryptocurrency-ga yaala ee Swede-ka lagu magacaabo. Marka tan waxay fursad u tahay markaasi dadka application-kan aadka u daneeyo. Okay, application-ka marka dadka aadka u daneeyo khaasatan Soomaalideena dad tiro badan ee application-kani u soo jeestay in maxaa loo yaqaan ay lacag ka sameeyaan application-kan Sweetcoin. Marka waxaan dhihi karnaa tan waxay fursad u tahay dadka ka niyajabay dadka inay isticmaalaan application-ka markaasi. Marka Sweetcoin ama token-kan Swede-na waxay rabaan bisha soo socota September 12 inay suuq soo geeyaan. Waatana Swede is a new cryptocurrency you mint with your movement. Waa kana lacagtan Swede waa lacag cryptocurrency macnaha ay soo gashay suuqan cryptocurrency soo gashay taasoo aadna ku kasbatay markaasi dhaqdhaqaaqa aad samaysay. Hambalyo inta waxaan leenahay Sweetcoin point aad u weyn ayaan siinaynaa. waxaan leenahay hambalyo. Marka maalmaha waxaa ka dhiman saa ujeedidba 39 maalin 12 saacadood 17 minute ama daqiiqo iyo 30 28 seconds macnaha ka haray. Marka application-kan point-kan waxaa leenahay waa application aad u qurux badan maxaa loo yaqaan markii laga hadlayo Swede-kan uu soo kordhiyay. Laakiin su'aasha qaabka daran ee maalmihii lasoo dhaafay ay ahayd ama ay noqon doonto markii lacagtan Swede-ka aan la sameyn ama aan la horumarinin sida ay ballan qaadeen. Haddii lacagtan Swede-ka aysan sameynin macnaha maxaa dhacaya application-kan sumcad ahaan ama bulsho ahaan ama application-kani aaminaadiis ma xitaa. Marka su'aasha afraad ayaa waxay noqon doontaa marka application-kan Sweetcoin marka laga hadlayo ma yahay application jiro oo lacag laga sameyn karo ama lacag laga sameeyo ma yahay application jiro lacag laga sameyn doono ma yahay. Marka su'aashani markaan fiirino waxay noqon doontaa su'aal dhowr dhinac taawanayso. Dhowrkaas dhinac ay taawanaysana waxaa ugu weyn oo kow ka ah lacagtan Swede-ka ee cryptocurrency. Marka si loo fiiriyo Swede-kani ay sameynayaan ama lacagtan cryptocurrency ay sameynayaan waa wax weyn. Laakiin markiisa hore application-kani siduu ayuu ahaa. Arrintan marka waxay noqon doontaa sida soo socota. marka muuqaalkan si fiican u fiiri lan muuqaalka like saar channelka subscribe saar. Su'aasha koowaad ee isweydiinta mudan ayaa waxay tahay Sweetcoin qiimo intee le'eg ayuu leeyahay. Si fudud ayaan su'aashan ugu jawaabi karnaa. Tusaale ahaan haddii aad haysato 20,000 oo Sweetcoin ah waxaad ku heli kartaa lacag ahaan $1 adigoo kala baxaya qaabka PayPal. Okay, marka haddaan xisaab ahaan u bedelno waxaan hadda ogaanay in 20,000 ee Sweetcoin inuu u dhigmo $1. haddaan $1 u qaybino 20,000 ee Sweetcoin waxaa noo soo baxaya in halkii Sweetcoin uu u dhigmo 5 sent. Tusaale ahaan in badan ayaa socotay ama tusaalaha maalmaha socotay waxaana samaysay 66 Sweetcoin. haddaan 66daasi ee Sweetcoin aan ku dhufano 5 senti ama 0.05 waxaa noo soo bixaysa $3.30. Su'aasha waxay tahay $3 iyo 30 senti isla markaasi ma la bixi karaa? Jawaabta oo fudud waa maya. haa si fiican ayaa ii maqashay. Jawaabta oo kooban waa maya. qaab aad kula bixi karto ma lahan 66daasi Sweetcoin samaysay. sababtoo ah lacagta ugu yar aad kala bixi karto Sweetcoin waa $20,000. waa 20,000 Sweetcoin. ka soo qaad 4 maalin ayay ugu qaadatay in aan sameeyo 66daasi Sweetcoin taasoo ka dhigan in aan socdo maalintii 7 ilaa 10 miles taasoo celis ahaan u dhiganta 66 Sweetcoin. marka haddaad isku daydo in aad sameyso 20,000 ee Sweetcoin si lacagtaasi macnaha ula baxdo adigoo maalintii sameynaya 66daasi ee Sweetcoin aan soo sheegnay waxay kugu qaadan doontaa 1,212 maalin taasoo u dhiganta 4 sano oo aad soconaysay maalintii 7 ilaa 10 miles si aad u awoodo in aad lacagtaasi kala soo baxdo Sweetcoin. marka su'aasha waxay tahay Sweetcoin ma yahay qaabka ugu wanaagsan ee aad lacag fiican ku sameyn karto adigoo gurigaaga jooga ama adigoo soconayo? Su'aashaasi jawaabteeda ayadoo fudud waa maya oo dhammaystiran. laakiin qaab caafimaad ahaan waxaan leenahay waa wax wanaagsan in dadka lagu riixo in ay socdaan. ibni'aadam qaab ahaan wuxuu u samaysan yahay in ficilada uu sameynayo xitaa hadday asiga dan ugu jirto wuxuu rabaa in lagu qiimeeyo ama in lagu abaalmariyo.
marka caafimaad ahaan waxaan dhihi karnaa waa istiraatiijiyad fiican oo dadkii macnaha inay socdaan oo macnaha wasakh jirkooda ku jirta inay iska bixiyaan oo macnaha loogu sheego oo la leeyahay intaas hadaa socoto lacag intaa ayaad ku helaysa. laakiin shaqo ahaan waxaa leenahay sweetcoin uma qalmo in waqti intaas la eg aad ku bixiso. su-aasha xigta ayaa waxay tahay maxaan kula bixi karaa ama lacagta sweetcoin maxay gudaha sweetcoin ka goysaa iyo sidee ayay sweetcoin lacag u sameeyaan. runtii haddaad eegto applicationka sweetcoin dhexdiisa waxaad arkaysaa xayeysiimo oo tirobeel ah oo qaab affiliate ahaan u samaysan, affiliate marketing ahaan u samaysan. tusaale ahaan haddaad fiiriso xayeysiintan idin muuqata waxaan borotiinkaani ku iibsan karaa 34.9 oo sweetcoin ah, lacagta sweetcoin-ka ah. run ahaantii xayeysiintani sweetcoin waxba uma dhinto, macnaha lacag uguma baxdo inay xayeysiintani 34.9 senti inaad ku iibsato, bal ayaga ayaa lacag lagu siinayaa qof walba oo iska diiwaangeliyo websitekaasi. yacni qaab affiliate marketing ahaan ayay korkaagii lacag dhibal ay ugu sameynayaan. shirkadahan ee borotiinka iibiya ayaa qaab affiliate ahaan link ahaan waxay usoo geliyeen applicationka dhexdiisa. marka mar waliba applicationkani sign up aad ku samayso ama aad ka diiwaangeliso ayay lacag ay ku qaadanayaan. adna waxaad taagan tahay lacag intaas ayaan sameynayaa oo maanta dhan waan soconayaa, adigoo waqtigaagii wax kale oo ka muhiimsan aad ku qabsan karto. qaybaha kale ee sweetcoin lacag aad ku sameyn karto ayaa waxaa ka mid ah inaad aragto daily bonus. waxaa la daily bonus oo tusaale hal sweetcoin laba sweetcoin aad sameyn si kan aad u jeedo. tusaale marka aan ku dhufto waxaa kuu soo baxayo xayeysiimo muuqaal ah oo aad ku qasban tahay in aad daawato. kaaga sii darneen ayaga waxay ku qaataan daawashadan aad sameynaysid lacag ay ku qaataan oo qaab affiliate ahaan ayay u qaataan. haddaad linki ahaan ku dhufato tusaale ahaan linki laga yaabo inuu kuu soo baxo muuqaalkaada, okay, haddaad ku dhufato ama gacantaada hadday ku dhacdo lacag ay ku qaataan, sababtoo ah waxaa jiro xayeysiimaha qaar kilik la xisaabinayo, kilik rate la xisaabinayo oo lacag lagugu siinayo. website waxaa jiro haddii tusaale ahaan linkigan waxay ku leeyihiin linkan qaad waxaad ku samaysaa promote ku sameey. badanaan waa aragnay boqolaal linki oo whatsapp dhexda la keenayo oo lagu leeyahay linkan haddaad ku dhufato macnaha lacag inta sameey siina gudbi, boqolaal qof u sii gudbi. ninkan linkigan boqolaalkii loo sii gudbinayo oo ninkii originalka ninkii iska lahaa lacag ayuu ku qaataa. marka ogaada sweetcoin dhedhel lacag iskuma siiso dad. marka xayeysiimahaasi aad lacagta sweetcoin ku iibsan karto waa kuwa qiimo hoose, okay, qiimahoodii ama shay aadan u baahnayn camal. kuwa electronicska tusaale ahaan tusaale waxaa lagu leeyahay mobile iphone 10,000 sweetcoin ku iibso. marka 10,000 sweetcoin inaad shaqayso dhedhel maaha, waqti badan ayay qaadanaysaa. marka tan ayaa ka dhigan in dadka badanaa aysan awood u lahayn ama aysan u yeelan in ay kala baxaan lacagtooda sweetcoin-ka. dadka kala baxaan sweetcoin lacagta waa dad tiro kooban oo ka faa'iidaysto adeegyada sweetcoin dhexdiisa yaala si ay lacagtooda ula baxaan. marka ma dhihi kartaa shaqadeedii full timeka ayaan joojinayaa sweetcoin ayaan lacag ka sameynaya? no, absolutely no, maya. waa riski, waa doqonnimo inaad saas samayso. laakiin haddaad leedahay ni aniga socod badanahay waxaa laga yaabaa intaas mile ama intaas kilomitr inaan socdo shay aad ku anfacay waa haddaad awoodid inaad 20,000 sweetcoin aad samayso kadibna aad $1 ahaan lacag u baxdo ama bonuska sweetcoin dhexyaal isleedahay waa ka faa'iidaysan karaa. taas waxaad u yaalo weeyaan, go-aanka xaggaagu jira. marka ugu dambeyntii waxaan ku leeyahay sweetcoin applicationkan sweetcoin la leeyahay waxaan isleeyahay waa waste of time, waqtigaaga aad lumiso. runta tusaale ahaan inay ku dhibtaa laga yaaba, laakiin applicationka sweetcoin waa waste of money. waxaa laga yaabaa wadooyin kala duwan oo maxaa jiro lacag aad ku samayn kartid oo ka fiican sweetcoinka, okay. wadooyinka channelkan had iyo jeer waxaad ka heli doontaa wadooyin la cadeeyay ama la proof gareeyay sida lacag loogu sameeyo. muuqaalka badan anaga aan soo gelino maahan muuqaalo oo iska soo geli ah, waa muuqaal baaritaan dhar lagu sameeyey, lasoo tijaabiyey ama la hubo dad horey u tijaabiyey, macnaha dad horey soo tijaabiyey oo lacag ka sameeyey kaliya. marwa muuqaalkan inaan kugu sii dheereeyo kaliya waxaan kaa rabaa muuqaalkan in aad lacag saartay haddaa ka heshay, sidoo kale haddaadan ka helin xitaa lacag saar muuqaalkan. sidoo kale youtube channelkan subscribe saar, saaxiibadana la wadaag. marka intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaal la mid ah waxaan idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.